gabar dhowr iyo 30 sano jirta inay intay telefoon soo qaadato ay dhahdo anoo la xijir macallinkaygii dugsiga i kufsaday dad kala jiro u sii nacamleeya oo dhaho waa run way dhacday ana li ugu sameeyay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan iyo si walbood ay daawanaysaan. ولكن عبد الله مع الحسين وعلى بعدين كلا سو هذا القناة كقروح ذا قوس كتو ميل والبعض جوكتان عاد بعدين سلام يا إن هدي أنا نقول عصبت هاي دمر والبابا وكحسوسين إن هذا إلا بين إن سبسكرايب إنه صارتو هدي هذا نوعين هدي هذا نوع هيدنا وتكون محسنت هاي سكاب كي أدنى ولا جوكتي أنا قلنا ما هاد علنت هذا نجا مرة ماتو سو أنت معه هذيات إن ما أنت وحن ربعنا كهالله عرير ما بدنا يورك ما أنت وحواي رنتي dumar badan baan u xanaaqsanay maanta harar hale ahaadaan macnaha mar walba dumarka lama amaani kare waxa la yiri hadii gabadha maanta oo dhan la amaano waa isdhiganaysaa Soomaa marka qaarkood in lagu dhufto baasho iska fiican tahay in kasto in lagu fogaada ay daran tahay waxaan arkay bariyahan ama maalmahan dambe social media inay aad ugu soo badanayaan gabdho Soomaaliyeed oo marka cabanaya oo dhahayo macallin dugsi baa kufsaday أنا اللي حجربو يكفصدي أنا اللي بيتبنجربو معلم دوكسي يكفصدي أنا صانو معلم دوكسي يكفصدي ما أنت أردن وحلقها الله أو موضوع يا برنامج لقدرتي معلم دوكسي بقى يكفصدي معلم دوكسي بقى يكفصدي مركا قبلها مالي والبكور ديو وأفر اللي بعتنك الساعة كور دينية فرين نوعية بيجود بيان هرت فرين تيجود بيان وفرين نوعية fariimaha ay gudbiyaan ma mid soo jiidasho leh baa mise waa mid dadka diinta lagu nacsiinayo oo dad fara badan oo laga yaabaa macallin dugsi ba aan garaneyn oo rabay inay hadda bartaan lagu nacsiinayo mise waa mid soo jiidasho mudan للاسف aad baa loogu xun yahay dad badan in arrimaha noocaas oo kala ay isu kaalmeystaan oo waliba inay dhalinyaro kaamira soo qaataan ay yiraahdaan haye aqligu wuxuu diidayo inaad ku qasabto ma aha ama aad ku riixdo horta aad baa looga wanaagsan yahay markii macallin dugsi uu wax kufsado kii iskuulka ka waran isaga kii iskuulka ka waran macallinkii iskuulka teeda kale waxaad arkaysaa dadkan arinta ka hadlaya ee macallin dugsi baa na kufsaday macallin dugsi baa saan ugu sameeyay gurigu ugu balansan jiray gurigu halkaas sigis dadka dhahaya dad kala jiro u sii nacamleeya oo dhaho waa run way dhacday ana li ugu sameeyay ana hadda kor macnaha waxa waaye barnaamij la yiraahdo shahaadatu zuur ba intay ku heshiyeen group yar oo doonaya in ay dadka diinta ka fidneeyaan doonaya in ay dadka macallimiinta iyo quraanka iyo diinta ay ku diraan doonaya in ay dadka nacsiyaan macaanka diinta doonaya in ay nacsiyaan macallimiintu ixtiraamka iyo sharafta ay bulshada ku dhaxleeyeen dad ka shaqeynaya way dadka ما أحد دت كهالله مصلحات قبله هي مصلحات نفتوضا كوا كهالله ما أحد وكوا دونية إن أي كفد نيان دت كدين تودا حقيقة مركا إذا كلا الله واحد محيله واحد جرا الله ضل قاعدين كره قبل ما أنت صدق جركة بلو فيرسو قبل ما أنت صدق جركة إلا بدو كون يسقال يتومن كلا جان قاعدسة الدون كمان أنت عصر ما أنت أنا وجوري جوجو أنا فرنت جوري إذا كجسوا قد بنايا wada zamankaas ama waqtigaas joogto in ay ka sheekayso 6 sano la igu soo kufsaday waa wax aysan maskaxdu gali karin waa waxaan maskaxdu marnaba qaadan karin dadka marka aaminaya arinta macnaha aanan Soomaaliyaba aqoon Soomaaliya waligood aan arkin gabadha qurbahaas ay isaga dhalatay way ku kortay waa lagu guursaday ilmay ku dhashay Soomaaliyaba hadii wax laga weydiiyo ma garanayso laakiin inay ayaydeed iyo awowgeed iyo qaar kamid ah abtiyaasheed iyo adeerayaasheed iyo inay ku nool yihiin bas ay garanaysaa ba laga yaabaa maanta inay gabadhaasu hadii la weydiiyo magaalada Muqdisho Soomaaliya xagee kaga taala hadii la yiraahdo inay garan weydiyo qofka noocaas oo kale markii barnaamijkan loo sheego oo arintan laga dhaadhiciyo muxuu aaminayaa waa diinka carar waxaas gabdhaha Soomaalida marka gabdhaha wadarteen soo batay wajiga wax la soo marsanaya waxba wajiga la soo marsanaya oo dambas oo kala ah ma aqaan wada waxba la soo gabadhi lama farsanay markaasay afkeeda wax allaala wuxuu qabtay ku hadlaysaa wax allaala wixii afkeeda suurtagal oo ka soo baxa bay ku hadlaysaa wajigeeda waxba marsan
lama fahmaya laakiin waxa garanaya un kaliya cidii dhashay iyo cidii la dhalatay uma garanaya gabdho noocaas soo baxay marka waxaan dhihi lahaa marka walaalayaalow horta adduunkani waa laba maalmood waa laga tagayaa ma la sii joogayo anna hadi dunya daarul mamar adduunkan safar baa lagu yahay qof walbaaba guri baa uga qoondeysan oo u socda marka gurigan ku qoondeysan ee aad u socotid wixii aad la tagi lahayd baa lagaga baahan yahay hadda markaad joogto adduunka wixii inaad sii samaysato laakiin ilaah baan kugu dhaariyay gabar dhowr iyo 30 sano jirta inay intay telefoon soo qaadato ay dhahdo anoo la xijri abuu nin i kufsaday macallin dugsiga macallinkaygii dugsiga i kufsaday ay dad u sheegto war qofka 30 ka iyo dhowr ka sano jiro markay 6 sano jirtay meeqa sano ka soo wareegatay ويرا waxa ka soo wareegatay 28 sano ka soo wareegatay 34 sano qofka jira ee maanta sheegaya ayadoo la xijir ila kufsaday 28 sano ka hor macallin dugsi horta wax ma kufsan jiray ina isweydiina muhiima ma kufsan jiray waay 30 sano qofka jiray intuu macallin intuu dugsiga dhiganayay oo 5 sano iyo 6 sano uu jiray dugsi quraan oo ogtihiin in qaarkood loox baa lagu dhigan jiray looxya lagu dhigan jiray looxa marka lagu dhigto quraanka meesha looxa uu yaalo iyo macallinka uu fadhiyo iyo ardaydu ay wada fadhiyaan iyo buushka meesha uga dhisan yahay gudaha ma la gali jirin ba banaanka daarada dugsiga lagu dhigtaa qofta marka intay soo hadasho dhayso xilligaas uu macallin u kufsaday rabta inay anaga noo sheegto marka anaga rabta inay naga dhaadhiciso xilliga in adeerayaalow in la idinka horeeyo la idinka dambeeyo ogaada waxyaalaha noocaas oo kala ah hay-adaha ka dambeeya islaamnimada la diriraya hay-adaha ka dambeeya culamaa u diinka Soomaaliyeed la diriraya oo anti ku ah hay-adaha qarashaad ku bixiyo hay-adaha ku bixiya lacag dadkan adeegsanaya siyaabay doonaan oo adeegsadaan ama lacag ha adeegsadaan ama fikir la soo guuriyay ha loo dhiibo ama arin aanan jirin qof inta laga soo dhaadhiciyo hala dhaho la shirtag ilaah baa idinku dhaariyay inta badan waxaan aragnaa gabdho yiraahdo waana la kufsaday macallimiin dugsi baa na kufsaday abtigeen baa na kufsaday qaar dhaha jiro abtigeen hooyadeen la dhashay baa na kufsaday bay leeyihiin maca dalik ina intay soo fariisato iyadu soo fariisato ay tiraado waa aniga oo heblaaye hebel ah ina heblaaye hebel ah meel heblaaye degana ku barbaaray macallinkaygu saas iyo saas baa la yiraahdaa meel heblaayu degan yahay halkaas igu kufsaday gurigaas saa igu yeelay kanoo saa igu yeelay midahda maxaa loo leeyahay intay soo fariisata hadasho telefoon baa qof laga wacaya waxa la leeyahay ku kufsaday aabahay baa kufsaday beelada anoo aabahay baa kufsaday saano u yeelay aabahay baa intay soo fariisata dadku uma sheegayso aabahay hebel baa la yiraahdaa wakaasa wuu kufsaday may dhahdo hal la qabto dawladdu waxa ka qabatay way macallin hebel baa kufsaday intay tiraamay soo fariisato intay indha shararka iska qaado ay fariisato caadi u dhahdo macnaha waxa waaye aan waa ikana anigu heblaaye abo macallinka hebel hebel yiraahdo ay kufsaday may dhahdo hal la barto wajigeeda hal la arko ma dhacayso tii ma jirto soo marka arintan marka inay propaganda la soo abaabulay ay tahay maxaa koos garanaya in maanta oo dhan macallinka dugsiga bas lagu dhiganaado macallimiinta iskuulka ay waxba ma kufsadaan miya macna macallimiinta iskuulka dhiga ee dugsiyada hoose dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo jaamacadaha dhigo ee kollejyada macallimiinta ka ah iyagu wax ma kufsadaan miya maan isweydiino oo caqliga nagu shaqeeyo bal maanta la soo hela gabar Soomaaliyeed oo leh macallinkii iskuulkayga ay kufsaday bal gabadhaada soo hela soo marka waxaad halka ka dareemaysaa in ay tahay islaan nacayb inay tahay in dadkii diinta la nacabsiinayo in dadkii iyo culimaa u diinka la iska horkeenayo waa macquul bani aadam inuu qalad ka dhaco lama diidana sanadadan dambe in macnaha way jiraan hadda wadamadaas oo macnaha Afghanistan oo Pakistan oo kale iyo Bangladesh way jiraan macallimiin arinta lagu qabtay way jirtaa oo social media dhaxayaysi laakiin qof uu qaldami kara oo qaladkaanu qofka bani aadamka macsuum ma aha qalad waa ka dhici kara qaabka uga dhacba laakiin in xaawo kasto oo xumaato macallin dugsi loo saaro xaawo kasto oo xumaato abti loo saaro maxaa adeer loo saari laay maxaa macallinka iskuulka loo saari laay ayagu malaha waxba ma kufsadaan waa malaa'igde in adeer yelo hal xisho gabdha Soomaaliyeed baa arrimaha sameynaya
dad baana ka dambeeya oo islaan naceeb awgeed arrintaa u sameynaya, dad baa arrimahan qandaraasya ku bixinaya, dad baa macallimiinta iyo waalidiinta isku diraya, dad baa diinta islaamka dadka necbaysiinaya, dad baa arrimahan ka shaqeynaya dadku inay feejignaadaan oo maanta waalidiintu la cabsadaan inay macallin gurigii ugu qabtaan arday ama inay ilmahoodii dugsi qur'aan geeyaan kala baqanayo oo shaki ka galay arrintaas. marka waxaan leeyahay waalidiinta shakiga noocaasa oo ku beermay, war ilaahay subxaanahu wa tacaala intaad ka baqdaan. Soomaali dhaqan bay lahaan jirtay, dhaqan ay Soomaali lahaan jirtay. dhaqanka ay Soomaali lahayd waxaa ka mid ah ardayga inaanan iskuul la geenin ilaa qur'aankiisa uu dhameeyo. dhaqan Soomaaliyeed bay ahayd. wadamo badan oo dad badan markii way kula yaabayaan, cunugan iskuul ma dhigta maya, cunug 6 sano jiro bay kuleeyihiin iskuul ma dhigta maya, maxaa dhacay? qur'aan buu dhigtaa. iskuul ma geesid maya, annaga dabeecadahanaga iyo dhaqankanaga qayb kama aha ilaa cunugan uu qur'aan ka dhameeyo in iskuul la geeyo. qaarkood waalidiintu way xifdisiyaanba, cunugu markuu xifdiyo 2 sano oo qur'aanka ku dhameeyo, sanad kale cunuga qur'aanka lagu xifdisiyo, kadib baa iskuulkii la geeyaa. waalidiin noocaasna way jiraan, qara la siiyo. laakiin hadda waxaad moodaa inay adduunkii oo dhanba isugu soo aruuray in xumaan faafisa maahane in wanaag sheegtaba in la waayo. waa waxyaalaha musiibooyinka waaweyn ee annaga nagu habsaday bay qayb ka tahay. subxaan allah, maanta in ay gabar un weyn oo intaa la eg oo ilaahay weyneeyey oo maanta waxyaalaha laga hadlayo adduunkan ka warqabta iyo adduunku maanta heerka uu marayo og, oo social media iyo tataawurka lagu sameeyey og, inay maanta la soo fariisato intay dambas wajiga soo marsato, telefoon qof kala xiriirto, ay tiraahdo yaa ku kufsaday, tii kalena ay dhahdo 12 jir baan ahayo macallin dugsi baa kufsaday. waxaas waa waxyaalaha ceebta ah oo islaamiyan aan u banaaneen, dhaqankanaga aan ku habooneen, dabeecadaha Soomaaliyeedna aanan qayb ka ahayn. waxyaalahaasna waxyaalaha laga fiirsan kara indhaha ma ahan, waa waxyaalaha loo baahan yahay in inta la iska kaashado dadka noocaas oo kale la iska zuuliyo. war qofku social markuu soo galo waa inuu isagu la yimaadaa fikrad, inuu la imaado bulshada u gudbin karo, fikrad uu la imaadaa dadka uu wax kaga dhaadhicin karo, fikrad uu la imaadaa dadku ay ku jeclaan karaan, fikrad uu la imaadaa wax walbaaba oo xun ummadda uga digi karo, wax walbaaba oo wanaagsan oo dadka ugu yeeri karo. waa inuu la yimaadaa qofku kalsooni inuu isku qabo oo bulshadii la soo hor fariistaa muhiim ah. laakiin inuu maanta dhan ay gabar ayadoo gabar ah inay inta la soo fariisato macallin dugsi baa saa sameeyey, abti baa saa sameeyey, waxaas waa ceeb. qofka noocaas oo kale ana weligiisa heer kama gaarayo, aynka uu leeyahayna wallahi buusan muddo sii soconin, waa u burburaya. warkayga meel ku qorta. marka haddii marka annaga aan meel walbaaba na laga soo caayo oo midu u yiraahdo raggii Soomaaliyeed dumarkii uma roona, oo dumarkii la fidnaayo dumarkii meel ka cararaan, midii kale ay tiraahdo wadaadadii wacnaha waxa waaye waaba ka carar bay taagan yihiin. waa qaladaad ka jiray ka mid tahay, waxyaalaha aan loo dul qaadan karin bay ka mid tahay runtii, oo la doonayo in la iska zuuliyo oo markaasi bulshada Soomaaliyeedna laga wacyigeliyo waxa noocaas oo kale inay tahay waxyaalo been abuurad ah oo dad ay ka dambeeyaan oo qarashada iyo lacag ay ku bixiyaan. ay jiraan hay'ado arrintaas ka shaqeynaya oo macallimiintu xurmada ay leeyihiin iyo ixtiraamka bulshada ay ku dhex leeyihiin doonaya inay zuuliyaan. taana wax la aqbali kara ma aha. haddii maanta qof xumaan uu sheego, ogow inuu jiro mid kale oo xumaantaa beeninaya oo wanaag meeshii ku bedelaya, isla markaasina qofkii uu doonayay inuu miskaxda xumaan kaga beero, islaamkii necabsiiyo, macallimiintii xurmadoodii uu necabsiiyo. ogow mid kale jira og arrinta aad ka hadlayso iyo waxaad oga jeedo iyo danta aad ka leedahay, isla markaasina dadkii barnaamijka xun aad ku shubtay doonaya inuu intuu ka shubo wanaag uu ku dhaqo. maanta adduunkan horumar baa la gaaray, nin qiyaami kara horta ma jiro. nin walbaaba waxa u suurto gashay in telefoonkiisa smartphone-ka inta soo qaato uu bulshada kala hadlo guriga uu joogo, halkii awal dee loo aadi jiray idaacado iyo warwarkaygan iga gudbiya iyo macnaha ay bariya noqon jirtay. maanta la isuma baahna adeer, smartphone-kaygan soo qaadanaya waxa waaye qadkaas u furana, macnaha waxa waaye wuxuu afkayga qabtaan sheegan. waxaad sheegaysaana ha noqdaan ama ogsonow wax macnaha bari lagu weydiin doona inay yihiin باذن الله الباري. gabdhaha arrimahaas ku dhaqmayo waxaan ka waaninayaa in waxyaalaha noocaas oo kala aysan la soo shirtagin oo markaas ay iska ilaaliyaan. ma diidani qalad inuu jiro, ma diidani qofka inuu qaldami karo oo qalad uu ku dhici karo, laakiin habar kasta oo xumaato in la yiraahdo macallin dugsi baa xumeeyay baan anigu diidanahay. habar kasta oo xumaata
gabar kasta oo dhibaato ku dhacdo in la yiraahdo macallin dugsi ama abti bal fiiri meel kale looma leexanayo adeerkay baa saa yeelay laguma dhahayo macallin iskuul baa saa yeelay laguma dhahayo waa abti iyo macallin dugsi waxa isa saaray wax walba aqligu inuu shaqeeyo loo baahan yahay marka insha Allah ta'ala intii xumaantu iyo qaladkaas laga galay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin boogadhayo intii dhibaatada sameysayna waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oga toobad keena intii laga been abuurtayna waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis ugu samra dhibaatada la idin geystay intii geysatayna waxaan leenahay chance baad haysataan aad oga soo laabataan ogaada wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh